bukan tidak alam perumahan di Kuwait kalau itu betul waktu ini weekend lagi apa yang kalau mereka bukan komersial ya and satu ini apa ini bukan yang ini semua orang yang sih apa nggak tahu mari kita buat kompetisi insyaallah wah anak ini apa ini fikir kau targetkan orang kamu itu apa segmenasi karena hari Allah ini karena yang bisa dunia sekarang Mustafa Isa. Kita boleh cari kita, butuh kita أبا تاجر يا أبا فقيرة فتوي ترى ده تاجرين يا ده فقيرين لكن هل كم يدي كل دوين بقى what the fuck هل كم يدي كل دوين بقى فكر كودا dadku waxay ku kala duwan yihiin oo hadba qofku soo fikiro hadan maanta yiraahdo lacag ma sameeynayo iska fadhiisanaya dadku waxay goornaan wad gaarina halka du sameeyni muhiimada koowaad horta buugu uu ka hadlayo muhiimada koowaad uu buugu ka hadlayo wuxuu yahay sida lacag loo sameeyo lacagta marka doonaysid horta inaad sameyso fikirkaaga ka saar isla haweynida iyo sida uga shaqeyn lahayd hadhow toole meelaha aad ka waaweyn buugeenu insha Allah taala uu ka hadlayaa sida hore idinku sheegayba sida lacag loo sameeyo ninkan qoraaga wuxuu aabihiisa dhabtii wuxuu ahaa aabihiisa faqiirka aabihiisa Richard Dawkins buuga ku arkasana waa aaba faygan oran dha kulli inay saaxiib yihiin aabihii buu ahaa inan ka yaray wuxuu isagu dooni jiray inuu lacag sameeyo markuu doonay inuu lacag sameeyo inuu ma rabin inuu warshada tago laakiin muhiimadiisa ugu weyn baa habku uu fikirayo horta aabaha taajirka iyo aabaha faqiirka ha fikirkooda ku kala duwanaadaan aabaha taajirkii wuxuu aaminsanaa isagoo lacag adeegsanay inuu iska celin karo wixii dhibaato ama caqabad ay soo wajahda halka aabaha faqiirkii uu aaminsanaa lacag la'aan adduunka wax lama qabto fikirkeena lacag la'aan waxba adduunka lama qabto horta lacagtu waa possible waxaynu wax ku kala adeegsanaa lacagta haddaba haddaynu soo noqono aabaha taajirka iyo aabaha faqiirkii aabaha taajirkii wuxuu ubadkiisa la wadaagi jiray xilligay wada fadhiyaan ama miiska qadada adu xilligu wuxuu la wadaagi jiray habka ugu dhow ee lacag loo sameyn karo halka aabaha faqiirkii uu diidanay isaga lacag loo soo hadal qaado waa maxay sababtu uu diidanay ka baan weydiiyay wax jawaab ma jiraan ma filaya aabaha faqiirkii wuxuu u diidanaa inuu loogu soo hadal qaado waa lacagtan isagu ma buu aaminsaneen aabaha faqiirkii wuxuu aaminsan yahay inuu isagu dib la'aan uu lacag heli karo qofkuna isagu haduuna shaqaysan lacag ma helayo marka muhiimada ugu weyn uu buugu ka hadlayo horta buugan waxaan isleeyahay inaad akhrisato horta inuu ku yara baraarujinaya waayo dad jaamacadda meeyay iyo dad kaleba aad buu anfacaya insha Allah horta ninkan Robert Kiyosaki wuxuu ku dhashay sanadkii dalka Japan jaamacadiisii u horeysay wuxuu ku qaatay Stanford Chicago jaamacadda markuu uu galay isagu ninkan horta aabaha faqiirka ama ninka taajirkii qof kasta horta faqiir wuxuu aaminsan isagu lacag laguma barto dugsiyada dawaana runoo lacag iskuul cid ku dhigata ma jirto ilaa adiga lagu hagayo mooyaan sakadayga insha Allah in kasta introduction ku sii raagay walaashana fadhido takootooda baysa ku soo gabagabnay ama iga tali waxa weeyaan u shaqay lacag si aad muxuu u dheregto taa kama hadlayno oo dadka faqiiriinta ama martabada dhexe adduunka ibka ku jira waxay u shaqaystaan sida say lacag u heli lahayn ama ay hanti u leeyahay lahaayeen dadka taajiriinta waxay ku fikiraan inay u shaqaystaan si hadhow toole ay iskaga difaacaan caqabadaha soo wajahda iyagoona wax lacag isticmaali doonin insha Allah qodobkeena intaasan kaga hadlayaa inta dambe walaashin bayno dadin doonta aad baad maasantiin inta kadib haddaan isku dayo inaan buugan si dhex galo ama faa'iidooyinkiisa aan wax yar niga siiyo ugu horeynta waxa uu horeysaan ma buugan akhrisanna waxa uu yahay inaan barano sida loo sameeyo lacag inagoo isla garanayna in buuga qofka qarow yahay Robert Kiyosaki
ayaa haddana waxaan ka faa'iideynaa 3 faa'iido mid guud iyo laba aan sii dhexgalayno haddaan ku horeeyo ta guud waxa weeyaan faa'iidada koobaad ee guud aan ka faa'iideynaa waxay tahay marka u horeysa inaad lahaato mindset ama manhaj iyo goal ku hagaya marka labaad waa inaad lahaato skill set ama inaad leedahay aqoontii iyo xirfadii aad ku gaari lahayd waxaad leedahay gaad marka saddexaad waa inaad garaato ama aad garanayso solutionka ama xalalka aad ku xalin karto sida xeerarka ku xeeran waxaad leedahay baro ama gaadhas leedahay inta haddaan kaga imaado faa'iidooyinkiisa guud waxaan nagu siin doonaa 6 waxaan jeedaa 5 ay ku kala duwan yihiin aabaha ama waalidka taajirka iyo waalidka faqiirka marka hore waalidka taajirku iyo waalidka faqiirku waxay ku kala duwan yihiin habka ay fikiraan hab fikirku waa laba qof isla dhashay waa meesha kaliya ku kala duwan yihiin haddaan maanta tiin qof aad u jiro maanta qof aad tiin mataan laga yaabaa inuu ka fikir fiican yahay ama aad ka fikir fiican tahay berina saas ma haanisan ama aad ma taajir noqonaya ama isagu ma taajir noqonaya because qofkan ama ka fikir fiican yahay ama aad ka fikir fiican marka aabahan taajirka ama waalidka taajirku wuxuu ka fiican yahay waalidka faqiirka haddaan tusaale ku siiyo waalidka taajirku wuxuu ka fikiraa inuu dhiso mustaqbal soo socda xagu waalidka faqiirka uu ka fikirayo inuu bariiskii maanta caruurtiisa uu soo saaro taasna waxay cadeynaysaa in hab fikirka ay labada qof ku kala tageen talabaad ee ku kala duwan yihiin waxay tahay geeral hada tastaxaad talabaad ee ku kala duwan yihiin waxay tahay waalidka faqiirka ilmihiisa waxa uu ku dhiiri geliyaa markasta inuu ka fogaado waxyaabaha maskax tuujinta ku keenaya ama maskaxdiisa waxyaabo fara badan ku dhalinaya halka uu waalidka taajirka ilmihiisa kula talinayo inuu waxyaabo fara badan ka fikiro oo isagoo yar solution u helo dhibaatooyin fara badan tusaale ka soo qaadba waalidkaagu waa taajir xaafadaad joogtaan waxaad arkaysaa qof kale oo ka soo qaadba maanta wax qof soo bandhigay waad la hadlaysaa waxaad ka oranaysaa qofkii oo wax soo bandhigaya ayaad arkaysaa inuu wax soo bandhigay wax faa'iido aad u weyn leeyahay marka waad ka baranaysaa xaafadii baa la tagaysaa hooyada oo taajir koonsa hooyo inaan waxa ka bartan doonaya marka way ku dhiiri gelinaysaa waxa ka oranaysaa ku soco hooyo kaga dayo oo inta fiican ka qaado haga waalidka faqiirka ay oranayo waxaan adigu dan maaha oo maskaxdaada uu ka weyn yahay xijinaa waxbarashadaada ku jeed fikirka saddexaad ee kala tageen waalidka faqiirka iyo waalidka taajirka waxa uu yahay nolosha waa kaliya kala duwan yihiin labada shakhsiyeed taajir iyo faqiir nolosha sideedaba waxay leedahay cuf dadka mas riixa ama soo jiida dadka markasta waxay doontaa inay ku riixdo habka ay doonayso marka kan faqiirku isaga markasta nolosha hagaysa halka taajirka uu isagu noloshiisa maaraynayo tusaale aad u fudud oo macallinkaygu siiyay Allah barakeeyo ayna la wadaagaya ka soo qaad xaafada joogtaa biyaha kulaylan saad dabka saaraysa marka dabka saarto soo qaad 3 shay beed iyo xabad kaarooya iyo xabad buna xabada kaarooga iyo xabad beedka iyo bunka markaad ku dhex rido waxaad arki doontaa isbedel aad u weyn marka koobaad beedkiisi saaran waxaan ognahay inuu jilicsan yahay markuu caadi yahay markaad karkariso waxaan wada ognahay inuu adkaanayo xabada waxay noqotay kaarooga marka sideed caadiga way adag tahay balse markaad karkariso way jilicdaa xabada bunka laakiin maxaa ku dhacay xabada bunka sida caadiga aan la burburin ma bururayso mid kale weeyaan ayada biyihii bedelaysa marka waxa martabada dadkuna waa saddexdaas martabada saddexdana waa dadkaas sababtoo ah dadku waa saddexdan ha kuleeyahay dadna nolosha ayaa iyagoo adag say u leexleexinayso kolba meel geynayso ayay jilicsaa dadna iyagoo jilicsan ayaa markay arkaan waayaha adduunyadu say tahay ay ku adkaadaan dad bay noqotay isma bedelaan waana kana ka barano fikirkan imika tan afraad ee kala duwan yihiin waalidka faqiirka iyo waalidka taajirka ayaa waxa uu yahay
waxay kala duwan yihiin aabaha faqiirku ama waalidka faqiirku waxyaabo ay caadaystaan baa jirta waalidka taajirka ina waxyaabo ay caadaysteen baa jirta waalidkan faqiirku inta badan waan wada ognahay waxay caadaysteen ay yiraahdaan ma awoodo ama ma karayo inaan sameeyo waxaas halka taajirkuna oranayo seen u awoodaa ama seen kugu siin karaa waxaad doonayso tusaale maanta hooyada guriga joogta haddaad faqiirtiin aad u tagaysaa waxaad ka oranaysaa hooyo maanta waxa la iga doonayaa arrintaasa kadib waxaad ka oranaysaa hooyo 20 kun baan doonayaa markaa waayadan su-aal weydiin ay ka oranaysaa hooyo ma hayo maanta ma awoodo waxaasaa laygu leeyahay kan kale weeyaan ee igu soo laabo halka waalidka taajirka haddaad ku tiraahdo hooyo waxaan doonayaa intaasoo lacaga ay ka oranayso seen kugu siiyaa talabaad maxaad ku falaysaa su-aal weydiintu sideedaba dadka waxay ku dhalisaa inay wax curiyaan ay tusaale dadka siiyaan oo xataa solutionka ay keenaan marka hab kale kala duwanba ay waxa yahay inay caadaysteen waxyaabo maskaxdooda ku dhalin kara wax ama inay fadhiyaan ama ay maskaxda ka shaqaysiiyaan fikirka shanaad ee ku soo gabagabeynay waxay kala duwanba waxa yahay inay waalidka faqiirka ay inta badan san wada garanno horta faqrigu wuxuu dadka kaga galaa maskaxda ee muuqa maaha marka waxa jirta waalid faqiiriin san wada ognahay inta badan waxay dhintaan ama jasho u timaada iyagoo xoogsanaya halkay maanta nasan lahaayeen iyagoo waaweyn halka waalidka taajirka uu isagu ka tagayo hanti ku filan kana badan caruurtiisa iyo qoyskiisa halkan waxaan nigula wadaagayaa hal fikir oo ay ka siman yihiin waalidka taajirka iyo waalidka faqiirka taasoo ah waalidka taajirka iyo waalidka faqiirka waxay ilmooda ku dhiirigeliyaan inuu wax barto laakiin same kind kuma dhiirigeliyaan sababtoo waalidka taajirku wuxuu qoranayaa wax baro kadib marka wax barashada dhamaysato adigu falowgeeda gal saad dadku kugu shaqayn lahaayeen oo dad mulkiyo noqon lahayd halka waalidka faqiirku qoranayo intaad wax barashada dhamaysato kadibna falowgeeda gal saad u shaqaysan lahayd yaani adigu noqo employee laakiin ha noqon qofka ownerka halkan waxaan kaga bixi doonaa fikradaha ay kala duwan yihiin waalidka faqiirka iyo waalidka taajirka kale waqti fara badan baan cunaa filayaa halkan waxaan nagula wadaagi doonaa dhowr fikradood inkastoo waqtigu ugu yaryahay aan soo koobaya fikradda koowaad si walaasheen baa noo sheegtay waxa buugga loo qoray in dadka la baro sida loo sameeyo lacag marka la sameynayo laba mid ma loo sameyn karaa ama inaad warshad tagto ama inaad fikirkaaga ku sameyso tan warshada maanta kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa tan fikradda lagu sameeyo haddaba buuggaas uu qoraaga noo sheegayo in la sameeyo lacag wax kaaga baahan tahay fikradahan haddaad qaadato waxaan filayaa oo aan hubaanaa inaad sameyn karto lacag qof taajirana noqon karto ta koobaad wuxuu noogu dhaliilayaa ama inoo sheegayaa inaanay iskuullada soo saarin aqoon-yahano ama hal abuuro la yimaada fikrado ganacsi balse ayagu wax u bartaa si ay u noqon lahaayeen shaqaale fiican oo lacag fiican qaata fikradda labaad uuna barayo buugu ayaa waxay tahay aqoonso inaanad ahayn faqiirnimaduna waxay ku xidhan tahay inaad maskaxda ka shaqaysiin weydo balse faqiirnimadu kuma xidhna inaad gacanta waxba ku hayn weydo markaa fikirka labaad ka qaadana waxay tahay dadku waxay ka faqiiraan maskaxda balse faqiirnimadu ma aha inaad jeebkaagu maran yahay tan saddexaad kala duwan yihiin waxay tahay haddaad doonayso inaad noqoto qof taajira ilaha dhaqaalaha afarun ka dhig marka koobaad waa inaad noqotaa employee oo maxaan employee noqonayaa mar haddaad doonayo inaad taajir noqdo waxaad employee noqotaa inaad waxaad doonaysaa inaad lacag soo saarto marka horeysa saad khibrad qaadato u noqo employee marka labaad employee noqotay kadib waxaad noqotaa qof sameeya small business wuxuu kaa caawinayaa inaad khibradda soo baratay ku dabaqi karto tastaxaada waxay tahay inaad samayso big business ama la ganacsi ballaaran haddaad samaysana waxaad garanaysaa inay keenayso fikrad afraad oo ah investment marka aad afartaa keento ilaaha dhaqaalaha wuu ku ballaaran yahay ama waad helaysaa waxaad ku taajirto waxaan jeedaa ta afraad waxay tahay adigoo shaqaala inaad noqoto qof investment fara badan sameeya oo large business sameeya waxay ku xidhan tahay
intaad kaydsato dakhliga ku soo gala dakhliga ku soo galaana inta uu leeyahay muhiimad uma balse inta ku soo gasha intaad ka kaydsato baa noqonaysa inta ku jaajirayso tusaalaha ku siiyo haddaan maanta meel ka shaqayso maalintiiba 50 laan lagu siiyo 50 ka laan haddaad 30 dhigto waxay noqonaysaa bishii 900 laan waan samayn karaysaa investment large business oo samayn karaysaa fikrad saddexaad soo gabagaynay waxay tahay ma hadda doonayso inaad noqoto qof taajira kobci ama kor u qaad aqoontaad u leedahay dhaqaalaha waxaan ku kobcinaysaa 5 shay accounting inaad wax ka taqaano ama aad wax xisaabin karto talabaad waxay tahay investment ama inaad maalgashi samayn karto tan saddexaad waxay tahay understanding market ama in suuqa wixii ku soo kordhayo hoos uga dhaca waxa muhiimad leh waxaan muhiimad lahayn aad fahansan tahay tan afraad waxay tahay in ku soo gabagabinayo taxation-ka ama inaad ka taqaano cashuuraha intaas ku soo gabagabinayaa buugga falanqayntiisa inaad akhrido ama 4 buug oo wallahi faa'iido badan intaan anigu akhriyay buugga la dhaa Rich Dad Poor Dad kulli maktabadaad ka helaysaa wada akhrin doontaa insha Allah buugga labaad waxa weeyaan 10 talaabo hore u qaad buuggaasi faa'iidadiisa de halka kuma soo koobi karno laakiin aad akhridaan dalbanaya 4 hours work week sida buuggeena ku jirta adduunyada imika waxa la soo saaraa shaqaale ku shaqaynaya 8 saacadood buuggaasina wuxuu ka hadlayaa waxa qoray inaan u dhashay dalka Jarmalka wuxuu 4 saacadood shaqeeyo wiiga kaliya buuggaasina inuuna laabka yeelin baan filayaa insha Allah la ku raadi doontaan buugga u dambeeyana waxa weeyaan show your work buug la dhahdo oo ah inaad aragto shaqadaad inaad aragto shaqada aad qabanayso afarta buugna faa'iido leeyihiin insha Allah buugga wax kasta oo leedii ka soo sheekay ururka tisqaad maahan urur hadda halkan sanadii kaga tagaya ururka tisqaad insha Allah wuxuu soo wadaa barnaamijyo doodo lagaga doodi doono aqoonaha iyo wixii la xiriira ay insha Allah ka doodi doonaan aqoon-yahano sheekhiyo deele waxa fiican wixii dhanka diintana laga eegay professor insha Allah ururadana waan soo wadnaa barnaamijyo noocaas insha Allah waxaan ku soo gabagabeynayaa balantan waxa weeyaan never give up insha Allah isdiibina gabdhihii qof kasta waa inuu soo saaro dhammaystiray waxaan rajaynayaa in dad bartiitihiin oo garanaya waxa qalday akhrisan kala fahmaya buugga dadka aqoon badan meesha fadhiyaan way la tahay marka qof kasta su'aal qabo soo dhaweynaya buugga waxa ka faa'iideyna daloo aan qofkaas maray qof kasta wuxuu qaadan karaa loo baahay soo dhawaada magacaygu waa Tutax waxaan rabaa in laba su'aal ku weydiiyo su'aasha koobaad waxay tahay chapter 1ka waxa ku jirta kelmad tiraahda lacagtu uma shaqeyso taajirku ma shaqeeyo lacagta ayaa u shaqeysa taajirka inaad kelmadda iga siiso warbixin fara badan iyo kelmadda labaadna waxay tahay waa maxay income-ka soo galaya taajirka iyo liability ka baxaya rijka assalaamu calaykum marka hore asset iyo liability waxay ku kala duwan yihiin asset waa waxa ku soo gala yaani waa raasamaalkaaga halka uu yahay liability-guna waxa aad khasaarto aan tusaalahaasiyo asset-ku wuxuu noqon karaa guri aad intaad iibsatay aad qof kale ka sii iibsay waa wax ku soo galay oo aan ka baxayn lacagta hadda ku soo iibsatay liability waxay noqon kartaa mobile intaad aad u lahayd aad iibiso lacagtaad ku iibsatay dib intii iyo waliba wax u dhigma toona qof kaama siisanayo taas ku soo gabagabada maasanta su'aashaaduna waxay ahayd chapter 1ka waxa ku jirta qofka taajirka isagu ma shaqeeyo lacagta u shaqeysa qodobka markii la sharaxay laga yara boodan filaya marka lagu leeyahay qofka lacagta u shaqeysa waxa weeyaan imka matalan guri baad kireysay gurigii baad adoo iska fadhida guriga ma galaysid lacagna kama bixinaysid balse adiga lacagta ku soo gashaa waxay tahay lacag adiga si dhib ah kugu soo gashay ama aad ku taajiri karto
marka lagu leeyahay taajirka lacagtu ma shaqayso lacagta taajirku isagu ma shaqaysto lacagta u shaqaysa tusaalahaas oo kale weeyaan qofka taajirkiina horta dadku waxay aaminsan yihiin guri bay lacag u tala taas kama hadlana inagu laakiin midda koowaad waxa weeyaan marka lagu leeyahay lacagtu iyada ku shaqeynaysa horta lacagtu inaad adu shaqaysaba ma weyn iyadu ku shaqayso adduunyadeena nimka waxa weeyaanba qof haduu jaamacad galo wuxuu ku fikirayaa inuu meel kala galo adduunyada nimka waxa shaqeeyaba dad shaqaaleystay saacado shaqeynaya marka lagu leeyahay lacagtu ku shaqayso waxa weeyaan horta waa inaad maalgashi samayso markaad maalgashi samayso adiga income-kii ku soo gala ayaa ku ah lacagtii ku soo galaysa horta adiga markay lacag ka baxso iyo markay ku soo galayso aad bay u kala duwan tahay adiga markay lacag ka baxso horta qofku waxa la yiraahdaa guusha markuu u tabciyo marka kale aad bay u kala duwan tahay waa markii waxa soo tacabto qof inaad yara siiso la jecla ka galaysa laakiin adiga wixii ku soo galay markaynu ka hadlayno rich dadka wixii adiga ku soo galay waa waxaad adu shaqaysatay ama meel ku taala ama adkaysatay wixii ka baxana waa liability-ga ay suqriino sharaxday waxaad adu khasaaraysid qofka taajirkii waxa la yiraahdaa wuxuu galaa falku wax ku keydsan lahaa ama lacag uu ku keydsan lahaa inagu Soomaaliyeed ku shil hadaynu urursano maanta ku xigta waxaynu soo siisanaa aad baad maasantaa marka hore Jamiile Maxamed Xamuud baa dhahaa waxaan ku weydiinayaa ninta ka taajirtii waxa tiri waa nin shaqaysta ta faqiirkina waa ku guriga fadhiya baa tiri kadib ka faqiirkii see uu shaqaysan karaa weydiinayaa waxa weeye maxaan u dhiirigeliyay inaad soo jeedisaan magacaygu waa Asma Cabdiraxmaan waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan idinkala soo qayb galo عويس تاهي دي سخرة يجنا رالي هذا وأنا كسر حبسامي أنا وح سؤال يدين ما هيو لكن recommendation بان يدين وضع recommendation كاسوا هاي نجيب لكو أركو dan yaradii naga yaryarayd oo maanta ma sha Allah buug aad u qiimo badan soo jeedinaya waxaan oran lahaa unaan weyn halka kaga sii wada dadaalka sii kordhiya akhrisku waa macallin gooniya oo adiga macallimad noqonaya markaad akhriska badsato marka aanu intaan baa soo jeedin lahaa aadna wad mahadsantiin magacaygu waa Aamin Axmed Cabdilaahi su'aasha rabiida ku weydiyo waxaad gabadhaas baan weydiinay magacaygu caawa baan filayaa waxaad sheegtaa farqiga u dhaxeeya qof ka lacagta haysta iyo ka lacagtaysan gabadha kale su'aasha weydiinay waxay tahay fikirkan buuga ma idinku ba markaa diyaariyay mise sababo kale oo buuga u soo diyaariseen baa jiri ma rajaynaysan ama ma doonaysaan inaad soo bandhigtaan maxaa si buugaasi idinku dhaliyay ka urur ahaan inaad ugu horeysaan oo soo bandhigtaan oo buuga ka horeysaan inantooyinka waxaan filayaa inay si qaldan noo fahamtay anagu waxaan nidhi buugan san lagu sheegayo ninka taajirka ahi waa nin aan shaqaysan isagu yacni gurigiisu fadhiya laakiin ninka taajirka ninka faqiirka ayaa daalaya iyadoo intaas waxaan filayaa inay si qaldan fahamtay imka ka faa'iideyso walaalo ninka taajirka ahi gurigiisu fadhiya sababtu waxay tahay isagu wuxuu haystaa income-kii soo galayay iyo asset-kiisii sidoo u qaabaysan lahaa isaga garanaya halka qofkan faqiirka ah isaga fikirka lagu dhaafay sababtoo isagu fikirkiisii waxa weeyaan inuu soo saaro nolol maalmeedkiisii iyo wuxuu xidhan lahaa maanta iyo wuxuu caawa carruurta siin lahaa balse qofkan taajirka isaga waxa hankiisa ku jira inuu ka sii fikiro mustaqbalka marka waa taas waa faqriga weyn ee labadooda u dhaxeeya maasantii aad bay u mahadsantahay walaasheen oo ah maxaa idinku dhaliyay fikirka inaad buug soo bandhigtaan horta marka la eego horta ilaa yaraanta waan jeclayn ama inaan wax qorno alxasil muraadimka way noo suurta gashay muhiimadda koowaad usoo ururku u asaasayna waa sababahaas sababta ugu dhalisay inaan soo bandhigno buugana waxa weeyaan caqabadaha marka la eego gabilay majority-ga dumarku waxna ma akhriyaan library-gana kuma badna saan arkaanu marka ujeedooyinka aanu soo sameynay baa taas ah inankaas su'aashuna wuxuu weydiiyay waxay ahayd maxaa u dhaxeeya farqiga qofka taajirka iyo qofka faqiirka horta aad boo dareemi kartaa qof markuu taajir yahay qof markuu faqiir yahay farqiga u dhaxeeya laakiin buuggan wuxuu ka hadlayaa farqiga u dhaxeeyo ah habka ay u fikirayaan qof hadduu ku dhahdo taajir ba horta qofna kuma soo dhasho taajirnimada qofna kuma soo dhasho faqiirnimada laakiin fikirka u dhaxeeya ah habka ay u fikirayaan ama waxay ka aaminsan yihiin lacagtu aad baad u mahadsantahay
cid kale nigu dhiirigelisay inaad buuggan soo jeedisaan mise inigu ma keenay marka horeysa macalinkan maanta ma joogo isagana mahadnaqayaa kaas macalinkaasana nagu dhiirigeliyay haddana magaciisana sheegana waa Cabdiqaadir Shariif isagoo nagu dhiirigeliyay inaan buugga akhrino anagu marka hore warka maan haysan talabaad xataa kumaana badnayn inaan nimaadno library-ga balse isaga dhiirigelintiisa darteed ayaan maanta heerka kusoo gaadhnay aan waliba buugga noo soo jeedinay haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha kale walaalkana weydiiyey oo ah buugaag kale niyadiina ma ku jirtaa haa buugaag fara badan oo kale oo leh tayooyin dadka wax kale ku dhalin karaa inaan soo jeedino niyadeedu ku jirtaa waad mahadsantahay walaal haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha koowaad walaalkana weydiiyey oo ah saddex si oo uu ku heli jiro qofka faqiirkii lacag iyo saddex kale oo uu ku heli jiro qofka kaajirka lacag saddexda shay oo qofka faqiirka uu ku heli karo lacag waa is soo dabagalayaan marka horeysa waa inuu isagu intuu xaafadiisa hore uga baxo uu shaqo tago isagoo waliba employee ku shaqeynaya oo hankiis wax kale ku jirin talabaad ku heli karaana waxay tahay isagoo dadka uu shaqeynayo shaqo dheeriya u qabta ama juhdi fara badan geliya taasna waxay u sababaysaa inuu helo lacag dheeriya oo aan ahayn tii uu markii hore shaqaysan jiray tan saddexaad uu ku helaya waxay tahay inuu ka shaqeeyo meelo fara badan oo aanu ku xidhnaan meel keliya saddexda shay horta qof taajir aan lacag ku waayi karo horta marka horeysa Allah haya inaad taajir noqoto inaad faqiir noqoto inaad taajir noqotana Allah ku xidhan tahay ma ina horta amarka Ilaahay aad lacag ku weydo misana si kale ku weydo saddex shay oo kale ku waayi karto waxa kamid ah in income-kii ku soo galaya ama lacagta ku soo galaysay ay hoos u dhac ku dhaco ka soo qaad shirkad baa leedahay shirkada inta badan marna hoos dhac ku yimaada marna sare u kac in hoos dhac ku yimaado taasina bafartiba ku keeni karta talabaad waxay tahay inaanu qofku isagoo taajir intuu islaha waxa isticmaalaysaa asset oo isticmaalta liability taasina waxa keeni karta inuu khasaaro fara badan galo tan saddexaad aan soo gabagaynaya waxay tahay inuu qofku isagoo isla taajir baa tahay lacag fara badan haysta hadduu isticmaalo alaabo fara badan oo aan isaga faa'iido u lahayn taasina bafartiba ku keeni kartaa weydii ah see billionaire nagu noqon karaa anigu ahaan waxaan ku sheegayaa laba midun marka koowaad waa inaad naftaada aamintaa believe yourself waa takliyada adduunka meel ku mari karto talabaadna waxa weeyaan inaad iska dayso cabsida shaqo kastood qabanayso dadku bilay waxaasi malahaynu adeegsanaa maluhu ma aha wax fiican billionaire la iskama noqdo horta waa loo tabcayaa tacabkana waxaa ka horeeya labada shay inaad iska dhaafto cabsida iyo believe yourself inaad aaminto naftaadu waxay kugu ridaysaa wadada aad ku gaadhi lahayd horumarka taasoo ay ka mas'uul hayeen labada gabdhood ee garbayga fadhiya sidoo kale maamulka maktabada macallin Farxaan halkan jooga macallin Cabdikariin xagga dambe ku arkayo kulay talaba yakuna taladooda aan sugaynaa soo dhaweynaa labada macallin